waa dhismaha kaliya ee hoyga u ah hadda tahriibayaal Soomaaliyeed oo laga soo celiyay shalay dalka Liibiya kuwaas oo laga soo daayay xabsiyo ay waqti badan ku jireen. Cabdiraxmaan iyo qoyskiisa waxay dhibaatooyin isugu jira jirdil, kufsi iyo xabsi oo ay ku jireen 3 sano kala soo kulmeen Liibiya, balse maanta oo ay Muqdisho joogaan waa maalin kaga bedelan maalmahaas. Sodcaalkooda waxa uu ka bilowday Muqdisho iyagoo la kulmay nolol ka duwan tii ay u baxeen. madan Liibiya markaan tagnay tahdiid baan ugu dhacday inna la hadaday waxa ilaahay nala kulmiyay in dhiiggeena dhacaankeena dhulkaas ugu baxo oo la xoogo oo la boodo oo la xiro oo la garaaco nolotuma biro wax diinta ka baxsan raashin la'aan ay jirto jumcadiiba hal mar sida nin dooro korsanaya amal xabad rooti lagu qoynay lagu soo kor istaago saa loo soo tuuray marka xabada rootiga markii la soo tuurayo nin walba wuxuu leeyahay ana cunayo soo wax garta ma nolosheena intaas saas ku sineed oo dil noo dheeryahay ani ajarkan waa igu yahay tuuri daraadeed lacag daraadeed soo wax garta ma islaantii dhabarkeeda waa go'an yahay 6 bilood indheega ma ahan saarin ayadana sana indheeda ma idin saarin awlaadda ilmahayga guri isaga noolaayeen ninka guriga lahaa iska isticmaalsanay iska adoonsanay ku shaqeynay soo wax garta ma ku shaqeynay guriga sida dameeradu ku shaqeynay markii ilaahay isoo ururiyay yiri Cabdiraxmaan ilmahaga waa kuwan intaas oo lacag u baahan ruuxa dhani ilaahay ka cabso nin weyn ilaahay ka dhig ana waxaan haysta male waa u jeeda waqtigaas xabs ka socda waxaan haysta male meelan aad afka saarana male niyo lacag samahay siyaad wuxuu waa u baahanahay ya ama keen ilmaha xabad meelaha ku xirxan Afrikaanta aan geena lagu gaday dadka tahriibaya ayaa loo kala iibsadaa sida badeecadaha suuqa iyaga oo gala socod saacado qaata si ay u gaaraan dalka Liibiya marka ay tagaana waxa u bilaabata nolol aqaab ah taasoo dhalinyaro badan ay u dhinteen. ninka ku soo kaxaysanaya hamoodin inuu meel kale ka soo kaxaynayo adi sabab ka jooga wuxuu hayaa numberka ka Liibiya jooga isaga la soo hadlayo wax oranaya haddan soo diray safarkii marka isagu lacag ka qaadan maayo isagu bilaash buu ku diray cunto waxa kugu baxaysa biyo waxa kugu baxaya gaariga ku qaadaya waxaas oo dhan waa lagu xisaabinaya hadhow tolo lacagtaas oo isku xisaabsan iyadoo jumlada ayaa hal mar lagu weydiinaya meesha la yiraahdo Banwali iyo Sabha Kufra waa meelaha magafu degan meelahaas waxay ku yaalaan Saxara Kufra ugu soo sokaysa Ajdaabiya ku xigta Ajdaabiyana waxa ku sii xigta Sabha Sabhana waxa ku sii xigta meesha la yiraahdo Banwali ba marka aniga safarkii ku socday Banwali baan ugu tagay Banwali baan lacagta la igu weydiiyay lacag dhan $8,300 ayaa la igu yiri 2 usbuuc gudahood ku soo dirsan lacagta dad ku soo dirsan weydana waan ku dilaynaa marka sidaas ay ahayd marka safar dheer oo dib iyo rafaad iyo silic badan niyo dhalinyaradana waan ka waaninayaa halkan aan taaganahay waa hoyga lagu hayo dadka qaxootiga ee shalay laga keenay Liibiya iyagoo ku beeraya tiro qaxootiga oo ka soo horeeya iyana laga keenay Yemen sida aragtaan waxa soconaya howlo gurmad iyo qabaqabaha oo dadkaasi lagu taageerayo. Axmed Cabdikariin Nuur waa gudoomiyaha hay'adda qaxootiga qaranka waxa uu in badan caawinayaa dadkii la keenay isagoo qayb ka ah guddi dawladda Soomaaliya ee Liibiya tagay waxaan uu sharaxayaa wixii ay soo arkeen. waxaan arkay qof Soomaali ah oo gacanta magafe laga soo bixiyay oo aan kaligiis inuu istaaga iska dhaafay saas u jiifay aan barkinta ayuu biyo cabi waay barkinta inaan u soo toosiyo asagu ma toosan kara ama korosku ma kicin kara ana u soo toosiyo sidaas bay lacag ku sii rabeen isbitaal baan geynay waxaan arkay nin Soomaaliyeed wiil Soomaaliyeed oo dhalinyaro ah oo indhabeelay wax yar u jeeda sidii qol mugdo 3 bilood ku hayeen sidii u tirdilayeen dhabarkiisa iyo nafaqa daradii jirka googo'ay waxaan nirey hadii lagu qaado ka hor wuxuu yiri insha Allah hamigeena waa gaari doonaa wali maskaxdiisa waa la ahaan inuu sii baxa maba noole muxuu sii baxa waxaan aragnay qisooyinka dumarka ma raba inaan ku sii dheeraado foolxumada loo geysto dad sidii
ashyaadii waa la kala dhacay lagu leeyahay qofkaana imaana 10 kun u bixina 10 kun ayaa waxaa la geenaa meel kaleeto oo magafa kaleeto ayaa 10 kun kaleeto laga siisan maxoolo amal inta la soo ataago ayaa la qabsanaa kuwaan oo laga qaadana kuwa kala qabsanaa dadkeena waxay noqdeen noocaas waxaa damiir la'aana in qof Soomaaliyeed uu qayb ka yahay qaabkaas dadka ama loo farxmaynayo ama loo jigdilay ama loo kala iibsanayo oo nadweyga ay ku jiraan ayaa dhibaato way kal adag tahay arrinta Dadaab iyo Yemen inkastoo ay dhib badan tahay laftigooda arrintan sharafta iyo mustaqbalka qofka Soomaaliyeed ka sukow nolosha dadkaas ayaa ku xiran in la badbaadiyo madaxweyne maxamed cabdullaahi farmaajo ayaa ballan qaaday in dowladdiisu ay dadaal badan ku bixin doonto sidii loo sii dayn lahaa maxaabiis Soomaaliyeed oo hadda ku xiran dalal badan oo caalamka ah maxamed bishaar barre jaamac goobjoog muqdisho